السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله دمانتين aad baan idin salaamaya walaalahayga qaaliga ah. Barnaamijka inta uu gudagalo waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo saarto channelka asxaabtan la sii wadaagto. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aad iyo aad u muhiim ah oo xasaasi ah. Arrinkaas oo ah arrin qurbaha imka ku soo badanaya. Runtii waxyaalahan oo kale waxaan maqli jirnay baheed laakiin wax aynu aragnay ama aynu dhaqan ahaan u naqaanay maaha. Runtii waa arrimo shirkiya dembiya oo diinta islaamkana didi ku ah. Arrintaas oo isticmaalayaan dad faamiliyo loo isticmaalayo dad lagu xumeeyo kale. Runtii arrintaasina waa arrinta sixirka subhanallah. Quraankeena iyo nabigeena sallallahu alayhi wasallam inta waxyaalahaas oo kale waa laga hadlay wax diinta ku hadashay laakiin waxaad moodaa in Soomaalideeni ay runtii iyagu diintii ku dhashay kuna soo barbaaray ee haddana baal marayaan kitaabkii iyo xadiiskii. Bal intaynu barnaamijka aynu hore ugu sii socon waxaan rabaa insha Allah video yar oo gaaban oo nin sheekh barnaamijkan dad faamili ku dhibaataysan xanuunsan oo uu bal ka fardaaminayo iyo sida yani barnaamijka loo soo saaray bal insha Allah video yar gaaban TikTok aan ka soo qaaday wada daawan insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال واحد ركتان عطر والله يدهدو بلو بيزنطين الله يدهدا تمو كريم للدوبي قرفيدا أما شان الله قف سوء يقانو تمو فربضان هذا ركتان إله سبحانه وتعالى مركو قرآن كتل مامي سحرك wax kasta ayaa dadka loogu sameeyaa timaha waa la isku sixraa kareemaha hadda maanta dumarka isticmaalaan waa lagu sixrayaa catarka la midka ah yani hadda waxa arkaysan oo dhan reer xanuunsanaya Allah caafiyo ayaa maxaan ku dhahdaa inta quraanka aan saaray shaydaan intuu ka kor hadlay ay wixii oo dhan noo sheegay waad aragtaan catarkan in la marsado looguma talagelin waa lagu shubay dhalada way marnaydo ever bay ahayd waa lagu shubay timaha saasoo kale waa la sixray ولا سحري ساسو كلا كريمك ولا كياني ميل waxa lagu qariyay ilaahay oo yatamaha waxaan ka soo saarnay baalka aan dul taaganahay oo de alaabta lagu sharxanayo qaybta ugu hooseysa ayaa la dhigay macalshanlada la isku daray kareemkan waxa laga soo saaray meel gaar ah oo hadeertan maskaxda qofka aan ku soo dhacaynin in guriga oo dhan la rogo mooyaan catarkana la mid marka waxaan loogu talagalay waa qoys dhisan Allah barakeeyo qoyskani in lagu burburiyo lagu baabi'iyo oo noloshooda la dagaalamo bal xataa waxyaalo kale hadeertan far badan ayaa naloo sheegay oo maxaan ku raahdaa shayaadiinta ay kaga kor hadleen ilaahina ha caafiyo walaalayaalow gurihiini baara inta ugu badan waxaad raadisaan marka ugu horeysa shay kugu qariib ah waxa kale oo aan ka tagay lacag baan ka tagay waan hilmaamay lacagtaasi waa 240 weeyaan oo teelo lacagta wadankan waa $10 bay hadda noqonaysaa wala dollarka hadda soo jabay 20 dollar bay noqonaysaa saasan qiyaasaya marka waxaan loogu talagalay qaybtii ugu dambeysay ee isku dayga ahaa in lagu sameeyo laguna sixiro la kala xirxiro wadaadka gabadha qaba iyo xaaskiisa lagu kala geeyo lacagtaas waxa loo waday wadankeena Soomaaliya ayaa loo waday qaybta halka subhanallah runtii waa arrin la yaab leh soo arkaysaan oo hoosta ka qoran waxa loogu talagalay in lagu kala geeyo dad qoys Soomaaliyeed dadka waxa sameynayaan ama garanayo dad kulli dad faamil ama dad saxaaba tawada arkaysaan teeda kale waxaan si live u daawanayay dad ku nool wadanka Germany oo arrimaha si live uga sheekeynaya dadka badanaa TikTok isticmaala arrinkaana u xog daloola waxaan rabaa inaan arrin yar oo kale soo waxa jira page laga leeyahay wadankan oo Soomaali Deutschland la yiraahdo qoraalka ay soo qoray ayaa waxa jira inaan arminka Axmed Kadiilo la taqaanaan marka arrintaas inay wax xaqiiqo tahay waxaad ugu garanayaa inanka ayaa page-ka ku soo share gareeyay ama soo post gareeyay qoraalkan ay wada arkaysaan runtii qoraalka wada arkaysaan waa wax jira waxaan anigu iminkaan afkayga sheegay maaha qurbaha kale Scandinavian-ka iyo meelaha kale warka ma hay laakiin runtii page-kaas waa page wadana oo dad 200 aduu dad fara badan 2,000 qof ay ku xiran yihiin oo xaaladaha jirka laga warrama runtii waan arkaysaan qoraalka inuu ku soo dhigay waxa la oran karaa waxaasina wax jira weeyaan haddaba Soomaaliya xageen diintii
kusoo barbaarnay iyo muslimnimadii iyo soomaalinimada xaggee naga tagtay. taasna waa su-aal aada muhiim la isweydiiyo. subxaan allah, waxyaalahan waxaynu hore u naqaani maaha, laakiin iminku way kusoo badanayaan. waxaa lagu kala geenayaa waa qoysas Soomaaliyeed oo qoysas dad wada dhashay oo la raba in lagu kala jaro. waa dad yacni waxba ka dhexayn, laakiin barnaamijyadan oo kale aad arkaysa inay hadda tusaale ahaan qofkii haddii qof ku dhaco inuu qof kale usii badanay, deetana waxay sii fidayaan. subxaan allah. runtii waxaan kula talin lahaa ani ahaantii guulad ahaan dadka waxaa ku dhiiran ama barnaamijyada daba socda ee barnaamijyada moodaya inay yacni ay faa'iido ka helayaan. runtii maalintii yawmal qiyaamaha inay sugayso xisaab aada u kulul, qabri uu sugayo, intaasoo inay sugayaan ayuu ilaawan malaynayaa. subxaan allah. adduunkana ciriiri buu ku jiraa, aakhirana kulley dee wuxuu yaala ma lahan oo dee wuxuu shaqaysta ma laha. marka Soomaaliyay walaaltinimada iyo wax isku sheega wuu naga dhexeeyaa. markaa walaalayaal, haddii aad isleedahay barnaamijkaas qof baad ku ogtay hebel, si berifaada ula hadal oo ha ka waantoobo. aakhiradiisa iyo adduunyadiisa midna ma wanaagsana wallaahi. dad Soomaaliyeed inaad kala geyso, qof caafimaad qaba inaad xanuun ku keento, runaantii dee waa wax aada iyo aada halisteeda u leh. subxaan allah. idinkuna markaste waysaqaadkiina basra, ilaahayna ku xidhnaada. runaantii ilaahay qof ku xidhanay qof wax ka qaadi kara malaha, wax dhibaato iman karsana male. maalin dhaweed waxaan arkayay gobol ka mid a gobolada Jarmalka aan ku noolahay ayay qiso noocaas kale ka dhacday. dabeetana dadkii ku dhacday ayaa si live isaga sheekeynaya oo si live dhowr kun oo qof hor fadhiyay aalada TikTok badanaa aada isticmaalo akoon ku leeyahay halkaana. dabeetana qof baa isoo ifeedgarayaan oo markaasaan soo eegay. runtii waxani wax caadi oo la sheegay weeyaanba, wax hadal ama hayo qoraal. marka qofkii wixii ku dhacay baa la hadlaya, xanuunkaas noocaas uu yahay, caruurteed baa dhibaatadaas haysta, qofkii ugu sameeyay waan garanaya waa sidaas. qofkii lahaa yani gabdhe ahay kulley marabo dadka inaan brifaadkooda ka hadlay magacyadooda. markaa qofkii kalena isna sidoo kale u lahaa inaa adigu ku samaysa cadeen baan haystaa, qof hebel baa kula socday. markaa subxaan allah, waxani waa wax yani jira marka la arko dee qof dhanoo leh adaa igu sameeyey, xanuunkaasee haya, ma kici karo, ma shaqaysan karo. markaa waad yani waxaad arkaysaa inay tahay masiibo dadkii soo wajahday. dadkii awalbaba iska dhibaateysnaayeenoo dee qurbihii dad wadanka markaad joogto, qofna waa qof dowladdu eryanayso bilaa sharciyo dhibaateysan, qofna waa qof dowladda isagu eryanayo iskuulle iyo shaqooyin wax kaga xiran yihiin iyo arrimo kale. markaa dadkiioo labadaasa u dhexeeyo orodba ku jira. haddii barnaamijkan kale kusoo kordhana dee waxay noqonaysaa masiibo kaloo meesha timi. dee wallaahi waana iska yara ayaan daro inaad soomaalinimadeeni ay noqoto sidaas oo kale, in ay xasdimo timaado meeshii, in qofka noloshiisa loo qoori waayo kale. markaa waxaan insha allahu tacaala dhammaantiin aan ugula talinayaa, ilaahay ku xidhnaada. qof ilaahay ku xidhan wax dhibaato u imanaysa malaha. marka saddexaysana weysayso, ilaahay ku xidhnaa, dikrigiisa, salaadana 5 waqti tukada. dadka badanaa shaqeeya salaadaha way ka tagaan. walaal meeshaad goobtaada shaqada waa inaad sheefkaaga bishaad u sheegtaa. waxaa jira shirkadaha qaar oo masaajid leh, shirkadaha qaarna malaha. markaa sheefkaaga bishaad u sheeg. haddii kugu adagtayna markaad bowsaa ama waqtiga nasashada u baxdo salaadaada tuko, salaadiina iyo kaa tegin. aad baan idin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.